daawade halkan waa M252 kusoo dhowo muuqaal kale taleefanada smartphoneskeena adeegsano ha ahaado iPhone ama Android cabiro kala duwan ay ku yimaadaan waxaan ula jeedaa waxaa jira taleefano yaryar sida kan oo kale oo ay fududahay qof kasta inuu hal gacan ku qabto kuna adeegsado waxaa sidoo kale jira taleefano waaweyn oo ay adag tahay in hal gacan lagu qabto si wanaagsan loogu adeegsado ugumaba sii jirtaba haddii ay gacantaada yar tahay waxaa jirta arrin inta badan ku dhacda dadka gacmaha yaryar oo iyagoo isku dayay inay telefoonkooda weyn gaaraan ama hal gacan ku gaaraan qaybaha kala duwan ee shaashadda oo telefoonku ka dhaco isla markaana ka jabo si aysan taa u dhicin waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugu tusiyo sida aad telefoonkaaga iPhone-ka ama Android-ka noocuu doonaba ha ahaadee aad hal gacan ugu adeegsan lahayd haddii ay gacantaadu weyn tahay ama yar tahay dabcan haddii ay gacantaada yar tahay si wanaagsan ayuu ku anfici doonaa waxaa sidoo kale muhiima inaan kuu sheego in taleefanada waaweyn loo soo naqshadeeyo in mararka qaar si wanaagsan loogu adeegsan karo hal gacan waxaana jira farsamooyin kaa caawinaya oo aan rabo inaan muuqaalkan kugu tusiyo waxaa sidoo kale xaqiiq ah inay dadku inta badan jecel yihiin inay iibsadaan taleefano waaweyn gaar ahaan gabdhaha dabcanna gabdhuhu waa dadka ugu gacmaha yaryar bani aadanka sidaa darteed fadlan qaybta hoose ugu yeer gabar aad hubto in gacmaheedu ay yar yihiin isla markaana adeegsata telefoon weyn waxaan rajaynayaa dabcan in muuqaalkan uu anfici doono kusoo dhowow sidaa telefoonkaaga iPhone-ka ama Android-ka ee weyn ugu adeegsan lahayd gacantaada yar waxaan ku bilaabayaa taleefanada Android-ka si aad telefoonkaaga Android-ka ugu adeegsato hal gacan midig ama bidix waxaad marka hore tagaysaa qaybta settings-ka kadibna waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay advanced features ama halkan ayaad ku qoraysaa one hand kaliya ayaad ku qoraysaa marka aad settings-ka tagto waxaad toos u tagaysaa meesha ay ku qoran tahay advanced features kadibna halkan ay ku qoran tahay one-handed mode ayaad on ka dhigaysaa dabcan sidaad u jeedo haddeer on ayuu ii yahay waan ka baxayaa sidaad haddeer u jeedo telefoonkeyga waxaan ku hayaa hal gacan waxaan rabaa marka inaan halkan gacan ku adeegsado waad u jeedaa marar qaar way igu adag tahay inaan geesaha gaaro oo telefoonka ayaa iga dabcaya waa laga yaabaa markaa si fudud inuu iga dhaco igana jabo si aan marka telefoonkeyga hal gacan si wanaagsan ugu adeegsado waxaan samaynayaa in aan batanka dhexe 2 jeer si boobsiisa taabto dhag ayaan siinayaa dhag sidaad u jeedo waa ka haddii aan ku celiyo sidiis ayuu ku laabanayaa dhag ayaan siinayaa marka waxaad u jeedaa marka in telefoonka shaashadiisa oo idil ay qayb yar ku soo koobantay bal fiiri qaybahan oo idil waa uu ka soo baxay telefoonka oo halkan ayuu isugu yimid dabcan marka sidaad u jeedo haddeer qaybta bidix ayuu iga jiraa anigana waxaan ku hayaa telefoonka gacanta midig marka si aan gacanta midig ugu adeegsado waxaan taabanayaa falaartan sidaad u jeedo ayaan taabanayaa waa ka falaarta ayaan taabanayaa markaan falaartan taabto midig ayuu ii imaanayaa haddii aan falaarta taabto haddana bidix ayuu tagayaa haddii aan mar kale taabto midig ayuu imaanayaa sidaad u jeedo haddeer marka telefoonkeyga hal gacan ayaan ku adeegsanayaa sidaad u jeedo way ii fududahay isagoo idilba intan ayuu ku soo koobmay waa ka bal fiiri waa ka telefoonkoo idil waa uu soo yaraaday oo intaa ayuu isugu yimidba haddii marka aad rabto inaad sidiisa ku laabatana waxaad keliya samaynaysaa in shaashadda qaybaha bannaan aad taabato ama aad sidii markii hore aad ku soo gashay oo kale aad 2 jeer oo isxigta batanka dhexe aad sidaa u taabato bal fiiri sida ayaad ugu laaban kartaa way fududahay meel bannaan ayaad taabanaysaa keliya meel bannaan ayaad taabanaysaa sidaa ayaad uga laabatay haddii aad marka iPhone adeegsanayso dabcan waxaa xaqiiqa inaan kuu sheego in iPhone-ka dhanka looga wanaagsan yahay laakiin ugu yaraan isagana wax la'aan ma ahan si aad marka telefoonkaaga iPhone-ka ugu adeegsato hal gacan waxaad keliya samaynaysaa in qaybtan hoose aad sidii markii hore kor ayaad u wadi jirtay haddeer hoos ayaad u riixaysaa ama u jiidaysaa bal fiiri sidaa keliya ayaad leedahay
sidaa ayaad leedahay. waa kaa aan ku celiyo qaybta hoose ugu hooseysa ayaad sidaa un leedahay. waa kaa marka haddeer iphone-kaaga hal gacan ayaad ku adeegsan kartaa. qaybta sare ee shaashadda oo idil way bannaan tahay, uma baahnidba inaad gaarto. waa kaa sidaa keliya ayaad leedahay. qaybta keyboardka ee iphone-kaan u imaaday. markaad rabto iphone-kaaga inaad hal gacan wax ku qorto, waxaad keliya samaynaysaa marka uu keyboardka sidan oo kale kugu soo furan yahay inaad calaamatan settingska hayso, kadibna aad ka doorato meesha ay ku qoran tahay one-handed mode. markaad doorato, bal fiiri haddeer qaybta bidixeed ayuu keyboardka wada aaday oo hal gacan ayaad ku qoran kartaa, weliba dhanka bidix haddeer. saa marka midig u keeno, keliya midkan ayaan samaynayaa, inaad taabto falaartan ayaan taabanayaa. waa kaa keyboardka oo idil halkan ayuu haddeer dhanka midig igu soo batay. waxa aan rabo ayaan ku qoran karaya marka sidaad ujeedo. haddii marka sidiisa aan rabo inaan ku celiyana, calaamada falaaraha geesaha wada aadaya ayaan taabanaya. keyboardka sidiisii hore ayuu kusoo laabanaya. ugu dambeyntii, waxaa rajeynaya inay ahayd kadib kuu fududahay inaad telefoonkaaga weyn ku adeegsato hal gacan. sidoo kale ha ilaawin fadlan inaad qaybta hoose ugu yeerto qof aad hubto inay gacantiisu yar tahay, telefoonkiisuna weyn yahay. inta laga gaarayo muuqaalka xiiba idinkii, nabadgelyo.